waxaana wanaagsan daawadayaal idilkiin meel waliba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan sheekada maanta halkaas aad nagala jaan qaadaysaan waa janalka maanta dabcan subscribe inoo saar haddii aadna aragto maanta waxaan diiradda ku saari doonaa sheekadeena madaxweynihii hore ee dalkaasi Tanzania madaxweyne John Magufuli oo habeennimadii xalay geeriyooday. haddaba inta aanan madaxweyne John Magufuli sheekooyinkiisa wax ku saabsan aanan u gudagelin marka hore aan wax ka baranno dalka Tanzania. magaca saxda ah ee dalka Tanzania waa midowga jamhuuriyadda Tanzania waana laba gobol oo midoobay oo sida jamhuuriyad ku noqday. waa dal madax bannaan oo ku yaala qaaradda bariga Afrika. Tanzania waxay xuduud ay la leedahay dowladaha kale ah Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Zambia, Mozambique, Malawi iyo sidoo kale dalka Zaire. Tanzania waxay ahayd laba gobol oo midowday ka hor xurnimadeedii waxayna kala ahaayeen gobolka Tanganyika iyo sidoo kale gobolka Zanzibar oo ay deganayeen Zanzibariyiintu. caasimada dalkaas waa magaalada Dar es Salaam. haddaba haddii aan wax ka baranay xog ku saabsan dalka Tanzania markan aan u gudagalno sheekadeena iyo dulucdeena oo ah madaxweynihii geeriyooday ee dalkaasi Tanzania. John Magufuli waxa uu ku dhashay gudaha dalkaasi Tanzania sanadku markuu ah 1959. waxa uu qaatay shahaadada koowaad ee cilmiga sayniska iyo cilmiga chemistry-ga iyo xisaabaadka isagoo mar dambana macallin noqday. sanadadii 1980 ayuu dugsiyada ku yaala gudaha dalkaasi Tanzania waxa uu ka ahaa macallin dhiga xisaabaadka iyo sidoo kale maadada chemistry-ga. markii uu horeysay John Magufuli waxaa loo doortay xubin baarlamaan sanadkuna waxa uu ahaa 1995. waxa uu nala soo shaqeeyay golihii xukuumadda ee dalkaasi Tanzania isagoo mar noqday wasiir ku-xigeenkii howlaha guud ee dalkaasi sanadkuna wuxuu ahaa 1995 ilaa 2000 ayuuna jagadaasi hayay. intii u dhaxaysay sanadadii 2000 ilaa 2005 wuxuu ahaa wasiirka dhulka iyo dejinta dadka. 2006 iyo 2008 intii u dhaxaysana waxa uu mar soo noqday wasiirkii xanaanada iyo xoolaha iyo kalluumaysiga dalkaasi Tanzania. bilowgii sanadkii 2015 ayuu musharax madaxweyne waxa uu noqday xisbigii Chama cha Mapinduzi oo magaciisa loo soo gaabiyo CMM. Magufuli waxa uu ku guuleystay nasiib wanaag doorashadii madaxweynaha Oktoobar sanadku markuu ahaa 2015 waxaana loo dhaariyay 5 November 2015 inuu noqdo madaxweynaha hogaamin doona gudaha dalkaasi Tanzania. madaxweyne John Magufuli 2015 doorashadiisii markuu musharaxa ahaa waxa uu loolan xoogan uu kala kulmay xisbiga mucaaradka ninkii hogaaminayay musharaxa ahaa kaasoo lagu magacaabi jiray Lowassa. markii uu xafiiska qabtay madaxweyne Magufuli waxa uu durbadiiba qaatay go'aan adag oo ah la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana noqday aabihii la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalkaasi Tanzania. musuqmaasuqa Tanzania ayaa caadi iska ahaa ilaa heer la shaqaaleysiiyay kumanaan qof oo aan haysanin haba yaraatee wax shahaado waxbarasho ah iyagoo shahaadooyin been abuura ku shaqaynayay. waxaana uu ku guuleystay isla durbadiiba in uu madaxweyne Magufuli uu kala raacday dadkii shahaadooyinka beenta ah ku shaqaysanayay taas oo dakhliga maaliyadda badan ka qaadanayay gudaha dalkaasi Tanzania waxaana uu ku bedelay dhalinyaro jaamacadaha dalkaasi wax ka soo baratay. Magufuli waxa lagu naanaysi jiray aabihii baldoosarka ama aabihii cagaftii xaaqday musuqmaasuqa dalka Tanzania. sidoo kale Magufuli waxa uu joojiyay u dabaaldegida maalinta xorriyadda ee dalkaasi Tanzania iyadoo qarashaad badan iyo lacag badan ay ku baxayaan awgeed uu joojiyay taas oo ah sababtu ay tahay inuu beeqaamiyo dhaqaalaha iyo lacagta dalkaasi Tanzania. madaxweyne John Magufuli lacagta uu ku shaqaynayay oo uu qaadanayay intii uu joogay xafiiska maaliyadda waxay ahayd $4,000 halka madaxweynaha dalka Kenya ee imika talada dalka Kenya ee Uhuru Kenyatta uu qaato mushaar dhan $14,000 taas oo laga garan karo sida dhaqaalaha dalkaasi Tanzania uga taxadirayay madaxweyne John Magufuli. mar kale ayuu John Magufuli ku soo noqday doorashada dalkaasi isagoo ah musharaxa xisbigiisa CCM ee 2020 dabayaaqadeedii. bishii Luulyo 2020 Magufuli waxa loo magacaabay inuu noqdo musharax madaxweyne xisbigiisa CCM ee talada dalkaasi haya ee doorashooyinkii hore ee 2015 ku guuleystay. sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha dalkaasi doorashada dalkaas waxaa hareeyay eedeymo la xiriiro xariga musharaxiinta iyo xubnaha siyaasiyiinta ka soo horjeeda xisbiga John Magufuli kuwaas oo lagu dhibaateeyay iyo sidoo kale rabshado ka dhacay gudaha dalkaasi iyadoo cadaadis xooggan dawladdu ay saartay shacabka gudaha dalkaasi Tanzania waxaana eedahaasi ay ahaayeen eedihii ugu dambeeyay ee madaxweyne John Magufuli loo jeediyay dabayaaqadii sanadkii 2020 markii mar labaad uu ku guuleystay doorashada dalkaas.
madaxweyne Magufuli waxaa lagu xasuustaa caabuqa COVID-19 markii gudaha dalkaasi uu ka dilaacay sanadkii 2020 bishii Maaj isagoo ku jeesjeesay cudurka COVID-19 ilaa jeer uu ka hadlay kaniisadaha dalkaasi isagoo sheegay in daawo-dhireedka waxa loo yaqaano ay kula dagaalami karaan taas oo daawo ah cudurka COVID-19. Magufuli waxa uu sheegay suurtagalnimada in la xiro kaniisadaha intii lagu guda jiray COVID-19 aafadii ka dhalatay gudaha dalkaasi Tanzania isagoo yiri taasi waa halka kaliya oo aanu ku bogsan karno haddii aan la dagaalno cudurka COVID-19 oo aanu kula dagaalno waxa loo yaqaano dhirta. waxa uu yiri waa shaydaan aan ku noolaan karin agagaarka Ciise Masiix sida uu hadalka u dhigay. Madaxweyne John Magufuli waxa uu ku andacooday khudbad dheer oo ka jeediyay gudaha dalkaasi sanadkii 2021 bilowgiisii talaalka khatarta ah ee uu ku sheegay inuu halis weyn uu yahay kaasi oo lagu la dagaalamayo caabuqa COVID-19. waxa uu yiri haddii talaalkan uu yahay mid nacfi leh ee waxtaraya kuwa reer galbeedku iyaga ayaa isticmaali lahaa waxay ka dhigan tahay in la waayay talaalkii HIV/AIDS oo muddo 20 sano dunida ku sii faafaya sidee suurtagal ku tahay iyadoo HIV/AIDS talaal loo waayay in COVID-19 oo hadda curdun ah loo helo talaal taas oo shaki gelisay dadka reer Tanzania in gabi ahaanba ay ka tanaasulaan oo ay kalsoonida kala laabtaan caabuqa faafaha COVID-19 oo talaalkiisa la soo gaarsiiyay gudaha dalkaasi Tanzania bilowgii 2021. Magufuli laguma arag meel fagaaraha tan iyo wixii ka dambeeyay 27 Febraayo ee sanadkan aanu ku guda jirno 2021 waxaana xanta suuqa ku jirtay ahayd in uu la xanuunsan yahay caabuqa COVID-19 waxaana ilaamaha ammaanka ee dalkaasi ay qarinayeen inuu u xanuunsanayo COVID-19 taas oo tiro dhowr jeer ah oo uu madaxweyne Magufuli meelaha fagaaraha uu ka sheegay in dadka iyo shacabka ee ku dhaqan gudaha dalka Tanzania uusan waxba u dhimi karin caabuqa COVID-19. ayeshe xalay ayaa la shaaciyay geerida dhimashada ah in uu dhintay madaxweynihii dalkaasi Tanzania John Magufuli xalay oo ay taariikhdu ay ku beegnayd 17 Maaj sanadkan 2021 waxaana la sheegay in wadna xanuun soo booda uu geeriyooday madaxweyne John Magufuli waxaana wararka qaar ay sheegayaan in laga helay caabuqa COVID-19. waad ku mahadsantihiin la jaanqaadka iyo daawashada channelkeena maanta ee sheekadii maanta ee ku saabsaneed John Magufuli iyo wax yar oo aan ka taabanay taariikhda dalkaasi Tanzania. waa naga intaas fadlan subscribe inoo saar. nabadgelyo.